xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqay in wada hadalada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland lagu saleeyo qodobada rasmiga ah ee la isku hayo sida warbixinta markale uu nagu soo dirayo wariyayna Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaage. xildhibaan Cabdixakiin Ciga Guuleed oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya horeyna u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadii ku meel gaarka ahayd oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku baaqay in wada hadalada dhex maraya Soomaaliya iyo Somaliland lagu saleeyo qodobada sida rasmiga la isugu hayo si loo gaaro xal kama dambays ah. waxaan leenahay waxa horta in waxa weey dhibaato jirta issue baa jiro waxba la kala sheeganaya marka wixii la kala sheeganayay in sida ahayd oo xalaal ah looga hadlo oo maxadanay danta labada maxadanay shacab laga hadlo oo wixii u dana laga hadlo oo Soomaaliya noqotan doonayna mar rabno in shakhsiyaad khaasi intay qodobo aan waxba ka jirin oo dad aan isdiidaneen waxay ku leeyihiin waa in la wada hadalada inuu socon labada u dhaxeeya waligeed yaa lahayd xamar lagama diidin in la Hargeysa la hadlo Hargeysa baa la hadalna waxa doonay meel in maxadanay in la wada maxadanay for example qodobada meesha ka soo baxay qodobo la siyaasadeeyay qodobo dan u ah waa qodobada shacabka Soomaaliyeed dan u ah laakiin waxaan doonaynaa hadii la rabo in labada dhinac wada hadlaan oo maxadanay in hore loo socdo in laga hadlo issues kala isku haysto maxay tahay wax la isku haystaa maxay tahay wax lagu kala maqan yahay taasaan ugu baaqaynaa anagu waxaan wada dhanka kale xildhibaanka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay muhiimadda qodobadii ka soo baxay wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland ku dhex maray magaalada Ankara ee dalka Turkiga hadii aan ka hadlo shirkii ka dhacay ayaantii dhaweyd magaalada Ankara ee dalka Turkiga ay maxadanay isku fadhiisteen labada walaal ee Somaliland iyo Soomaaliya madaxdeedu shirkaas wuxuu horta hadee wixii ka soo baxay weyn ognahay oo toddoba qodob oo muhiim ah ka soo baxay laakiin muhiimaddu waxa weeye oo aan rabaa inaan halkan kaga hadlo shacabka Soomaaliya ku nool waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland deegaanka Somaliland waa shacab Soomaaliyeed anagu waxaan nahay waxaan ka soo jeednaa xildhibaanadii ka soo jeeday deegaankaas baan nahay shacabka Soomaaliyeed ee Somaliland annaga matalna annaga xuquuqdooda u doodaynay waxa weeye nimo siyaasiyiin oo halka jooga inay u hadlaan danta Somaliland ka hadlaan way fiican tahay laakiin siday tahay looga hadlo ayaa wanaagsan dadka la maran habaabiya ma wanaagsan marka anagu in dadka la maran habaabiya ma doonayno anagu waxaan rabnaa Soomaaliya waa mid weeye shacabka Soomaaliyeed ka jooga maxadanay loo yacde ilaa kala raaskan mooni jooga xuquuq bay wada leeyihiin anagu halkan waxaan u joognaa oo dhowr iyo 20 sano soo dhaafay aan u joognay inay xuquuqda Soomaaliyeed xuquuqda ay leedahay nin kasta oo Soomaaliyeed xuquuqdiisa helo cid Soomaaliyeed meel intay soo fadhiisatay tiri Soomaali halka jooga xuquuq gooni kaliya Soomaaliyeed ka joogana ma jirto. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho.